waxaan ka hadli doonaa mataano. Mataano bicinuhu waa hal urjiif iyo wax ka badan ayaa ku abuurmay minka. Inta ugu badan waxa ay noqdaan mataanuhu labo, laakiin mararka qaar waxay noqon karaan 3 iyo wax ka badan. Sababaha mataanaha iyo dadka lala xiriiriyo. Gabadha isticmaasha dawada uurka lagu raadiyo intaysan uurka helin ka hor mataano ayay heli kartaa. Qoyska waalidkood mataanaha ay dhali jireen iyana dadka kale way ugu dhow yihiin inay helaan ama way uga fududahay inay helaan mataano. Hooyada hore u dhali jirtay mataano mar kale ayay dib u dhali kartaa mataano. Qaababka lagu garto mataanaha xilliga uurka. Caloosha hooyada uurka leh oo xaddigeedu uu aad u weynaado. Laba wadna garaac iyo wax ka badan oo laga maqlo uurka hooyada ama minka. Markii la isticmaalo waxa lagu magacaabo fetal heart doppler oo ah mishiin yar oo lagu xiro caloosha korkeeda. Qaybaha jirka laba ilmo iyo wax ka badan oo lagu arko kombiyuutarka uurku jirta ee ultrasound-iga. Ciladaha la soo dirsa hooyada mataanaha sida. Dhicis ilmaha oo aan bila dhamaysan. Dhiikarka uurka uu sababo. Koriima yari uurku jiraha. Ilmaha oo qaab qaldan u jiifta minka. Kaadi macaan xilliga uurka. Biyaha uurku jiraha oo aad u bata. Dhiigbax dhalmada kadib iyo ibida oo qaldanta. Baarista loo sameeyo hooyada mataanaha sida. Kow waa kombiyuutarka uurku jirta ee ultrasound-iga oo lagu ogaado ilmuhu inay laba yihiin, wadna garaacooda iyo minka qaabka ay ugu jiraan. Dhiigga oo sonkorta laga baaro iyo baaris guud oo loo sameeyo. Xanaanada ay u baahan tahay hooyada mataanaha sida. Kow waa la socoshada takhtarka iyo mar walba inay ka warqabto. Hubinta mar waliba dhiiggeeda hemoglobinka ama HB-ga. Nasiino hubinta abuurka uurku jiraha iyo qaabka uu ugu nool yahay minka. Nafaqo dheeraad ah oo loo sameeyo hooyada haddii fuuqbax uu jiro. Nooca dhalmada hooyada mataanaha sida. Qalin ayay ku dhalaysaa hooyadu haddii hore qalin minka ah loogu sameeyay. Haddii mataanaha madaxooda uusan hooseynin ama aysan madaxkeen ahayn. Haddii laba mataano iyo wax ka badan uurka ay ku abuurmeen. Ka dhalida duleelka dhalmada haddii uurjiifka ugu horeeya uu madaxkeen ahaado. Qalinka ilmaha labaad hooyada mataanaha sida haddii uurjiifka labaad uu soo bixi waayo ama uu dadban yahay. Waxyaabaha loo baahan yahay foosha ka hor. La talinta hooyada uurka leh iyo waxa looga baahan yahay. Ku dhalida hospitaal, qorsheynta xaaladeeda caafimaad iyo la socodka takhtarka ilaa ay fooshu qabato. Qoraaladan iyo kuwa lamid ah oo ku saabsan hooyada uurka leh laga soo bilaabo marka ay uurka qaado ilaa ay ka dhalayso iyo 6 bil ugu horeysa xanaanada ay u baahan yihiin ilmaha dhashay. Waxaad ka daalacan kartaa qormooyinkiisa buugga qoys deeqe kaas oo aad ka heli kartid lambarada shaashada ka muuqda. Waa mahadsantihiin.